mujaahid xasan guuro oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu nasiib darro iyo foolxumo weyn oo aan la sii eegan karin ku sheegay amarkii ay maanta ciidamada boolisku ay kula wareegeen xarunta xisbiga mucaaridka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. mujaahid guuro waxa uu dib u xasuusiyay saaxiibadii madaxweyne Biixi iyo wasiir Maxamed Kaahin ficilladii ay sameyn jireen waqtiga ay mucaaridka ahaayeen iyo qaabkii uu la dhaqmi jiray madaxweyne Daahir Riyaale, waxaana uu su'aal geliyay in wixii shalay loo dagaalamay natiijadeedu ay noqotay ficiladan ay maanta ku dhaqmayaan mujaahidiintii u soo dagaalamay dalkan oo maanta talada dalka ugu sarreeyay. waxaana uu madaxweyne Biixi kula taliyay in aanu noqon madaxweyne ficiltama balse uu noqdo madaxweyne u tanaasulan dantan dalka. isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri guud ahaan marxalad adag baan horta maraynaa dalkeena. waxaad moodaa nidaamkii siyaasiga ah ee aynu haynay wadadiisa inay soo xidhmayso moodaa sida odayaashii horreeyay sheegeen in alle intii la dooran jiray ee codka ummadda ku iman jirtay meesha maanta kursiga ku fulishay taa madaxweynaha mooyaane mid kaliya oo mandate yani intii dadku uu siiyay dastuurku uu siiyay meesha ku fadhidaa ma jirto. axsaabta waxay ku guuleysteen inay sameeyaan muddada doorashooyinkeedii muddadoodii inay qabtaan xeerarkii lagu bedeli lahaa guurtida doorashooyinkan maalin walba dib u dhacaya in wax laga qabtaa bay ahayd. waxaad aragtaa axsaabta qudhoodii gudahoodii baa dimuqraadiyadda ka jiran oo noognahay oo nina xisbigiisa looguma tegi karo, nin walba xisbigiisa isagaa leh. xaaladda adag baynu ku jiraa. waxaynu ognahay bariga waxaa ka taagan galbeedkii murankan imika siyaasiga ka jira. waxaanu maraynaa marxalad aad adag. taasi mowqif baanu ka leenahay gaara dhaqsana dadkaanu ugu soo bandhigaynaa. halkaanu taaganay waxa weeye taasi way xidhan, waddadaasi way xidhantay aynu ku socnay siyaasiga ahayd ee saddexda xisbi ahayd way xidhantay. xaggii loo guuriya la isweydiiyo taasi talaanu ka ahayn wixii annaga nala noqoto waanu soo gudbin doonaa haddii la idhaa waqti taa markaan intaa kaga baxo waxaanu soo noqonayaa xalayto waxaanan kollaba filaynin baan TV baan daawaday baad walba baan daawan jirin TVyada xalayto xubka qalbi magarmaaye waxay soo kiciyay maanta waxa weeye waxaan dhageystay taliyaha cusub ee ciidamada booliska Soomaaliland loo dhiibay oo TV ka hadlayo shirsharaad qabtay. runtii markuu arkay siduu u hadlayay tirtirfanayay markaan arkay waxaan tirtiro xageed joogtaa. wuxuu mudaharaad lama ogola sharcigaan ogolayn la yaabi maayo dee sharciga uu ku cusubiyo booliiska iyo sharcigiisa mu akhriin iyo mudaharaadku waa loo wadiyay loo maro mu akhriinin military baa sharta la soo qabto la keenay. waxyaabaha dhibaatooyinka jireen institution dhisma aynaan ogolayn. institution walba dadkii garanayo joogeen cid kale keenayna kii joogeen agaasimayaasha had iyo goor wasaaradda ay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha ay marwada bedelaa ilaa wasiir daaxadkii uu ka dhignay political oo aan habboonayn. way siduu u dhaadanayay walaha lama qaban karo lama iman maayo annaga qabanayna waan aad iyo aad baan la yaabay. waxaa kaloo la yaabay waxa la igu yidhi laba nin baa la xidhay. ninkii la xidhay xogayihii afhayeenkii xisbiga wadani waxaa soo booqday xogayihii xisbiga kiina waa lagu daray taar waa la sii yaabay. waxaa kaloo maqlay nin maalin dhoweyta hadlay ayaa xalayta gurigiisa looga tagay waa la soo xidhay oo erey yidhi nala meeraysan ila meel noo wad. waxaan maraynayaa waxaanu la yaabay oo kale TV-ga iyo intaa wareen maqlay iyadoo labada nin ee xukume ee meesha fadhiya eenu saaxiibaday ah madaxweynaha maxamed muuse biixi cabdi iyo maxamed kaahin axmed waa saaxiibaday waa raggaan mujaahidka soo wada galnay. waxaan moodayay waxaynu u soo dagaalanay waxaan ka duwanaa. waxaan moodayay inaynu waxaynu u soo dagaalanay aanay ahayn. waxaanu maraynaa kabtaan kufay ku qosle ayaa lagu xidhi jiray maxamed saad ku xidhi jiray. ebrey baa erey yidhi inaynagu xidhnaa eebaynu. midda kale saaxiibayaal mucaarad baynu hayn weligeenba ilaa maalintaynu SNM isugu mucaarad baynu hayn. qolo tiri hadday tiri qolo waxaanu shirkay baan xisbigayga dhexdiisa iyo hortiisa ku qabanaynaa waxaan inta alaamka intaa leegiyo fulinimada intaa leeg hortiisa kama filin iyo baqaayta waa maxay baqaayta leeg. midda kale لا تنهي عن خلق وتأتي مثله فعال عليك إذا فعلت عظيم. واحد أدوق السمين شرتي عد أما أتصميصه عد إن أتكو هذا يسوح فرح إنه مظاهرات أو كل يوم الناس بيجي واحد قبض من السمين شري ما أنت واحد معنا إلا ريال إلا عقال وإنك بورا جل شري
weynigii aqalada isku xeeri jiray weynigii shaaniyada qarxin jiray maanta maxaa dhacay dhingad baan kaaga soo saariya fadhiyi maysid taariikhdii baad eegaysaa eegayo etoobiyada dadku barku waxaa eega wuu inagu qosdaya waxaa lagu yidhi nin ahaa berigii haaruun rashiid wakhtigiisii inaana sheekada aad u hayn baa laga yaabaaye raalliha layga ahada lakiin anu waan mutahinayaa ayaa qolo baraamika laydhaa ayuu munaasiibtii waaweynadoo dhan ku taxay haaruun rashiid oo ay kala qoran yihiin dabeedna arrin markaa adkaa oo boqorku aanu u qaadanaynin oo aqalka galaangalkiisiiyo faradhiiraana ayaa nin madaxa oo weyn lagu sheegay dhowr ninoo baraamikadiina waxbaa lagu sheegay sheekh sudaanka ceeb ku ah dabeedna nin reerkaa baraamikada ka mid ahaabaa intuu kacay wuxuu yidhi lastu anaa min albaraamika walal baraamikatu minni iminka waxaan isweydiinayaa waa nimankaa saaxiib baa ahaydeen jabhaddii baa wada ahaydeen calan cas baa wada ahaydeen nimankii dalkan rogay baa ahaydeen waar waxaa u soo wadeen mooxanu aha omba waxaasaa saaxiib ku ahaydeen talow maxaa waxaan idhahdaa lastu ma anaa min snm waxaan idhahdaa talow lastu ma anaa min calan cas labada talo ima calan cas baan ka baxay maanta saaxiib yaan waxaan leeyahay ku soo noqda idinka yeeli maayo saaxiibkay madaxweyne muuse bixi cabdi ilaa maalintay noogeen mucaarad baan nahay maanta in baanu mucaarad ku xidhaynaa kaama yeelayo dadkuna kaama yeeliyo laynoogamana fadhiyo waxaa dadku inaga filayay markaynu dalka duminayno dadka daynay inaynu waxaan ka duwan samayno 30 sannadood baynu fadhinaa labadii waa ayaan darro in dadku yidhaahdo labadii snm gooray ay qabatay waxay ka liidataa labadii hore ka qabatay waa ayaan darro waa ayaan darro in dadku yidhaahdo snm odaygii siinayo maba loo dhaafayaa madaxweyne muuse laguma dhaafayo adiga maxamed kaina loo dhaaf maayo qof baa haddayaanu xidhnay idinka yeelaysaa ma jirto ilaahna idinka yeeli mayno anagu idinka yeeli mayno dib uga noqda arrintaa odaynimo ku wada deganaansho ku wada wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan buu yidhi wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan waxaad walaal ku weydo wiilwaal ninkii la odhan jiray ee dadkaba waxdigiisii u akaa inan rag walaal wuxuu kula ammaan waaya buuhi waxaanan ku samayni ma jiro buuhi inan rag waxaa ku wadi karteed madax ku noqon kartaa waa waxa weeyaan walaal idin soo dhaweyn ma aha haddaynu markii hore qalqaalli ahayn inaynu qalqaalli ahaanu kursi baynu fadhinaa ka weyn qalqaalinimada madaxweyne cadhoodaa oday cadhoodaa oo dul qaadan waaye taariikhda kuma jirto waxaan hore kaga sheekeeyey ku noqon maayee xuseen xasan iyo sudaanteeye wixii kala maray markuu isagoo shirka dhexdiisa jooga ku caayey shirka dhexdiisii intuu ammaanay buu yidhi 100 nin buu la qiimeeyo hal nisaa u eegi karaa ma jirto maalintaasuu ka adkaaday waxaad ka adkaanaysaa marka aad qofka xumaan sameeyey u dhaafto waad ka adkaanaysaa laakiin markaad xumuhu sameeyey xuma ugu bedesho kama adkaanina waad la mid baad noqotay barbaraa noqoteen hab ficiltama madaxweyne ficiltama ama oday ficiltama waa ayaan darro waxaan ku soo koobayaa waxaa laynaga fadhiyaa laynaga sugaya haddaynu snm nahay iyo haddaynu calancaas ahayn iyo haddaynu dadkii dalkan dagaalka geliyey ahayn waxaa laynaga fadhiyaa wuu ka badan yahay hebel baa hadlayon xidhay wuu ka badan yahay wuu ka weyn yahay hebel baan la xintamaya wuu ka weyn yahay wuu ka weyn yahay labada nin baan keeno labada murankaasi arrin muran dhaliyey baan oday ka ahay wuu ka weyn yahay cabdiraxiin muule ismaaciil shabakadda wararka Ilays News magaalada Hargeysa